soomaan si nadiif ah u aragtaan. Bismillah. Marka waxaan ka bilaabayaa hal sanaan kasoo bilaabaya insha Allah. Sidaa la socotaan goal haddaa si u fiirisid marka analyse-kiisa sameynayso waxaa qurux badan inaad kasoo bilowdid high time frame. High time frame-ka markaa ka bilaawaysidna waxaa waaye baatanada iyo waxa uu sameynayo inaad fiirisid. Okay, inta waxaa nooga muuqdo carbon T dhahan carbon hand dhahan inta badan dadka bataniska isticmaalo, laakiin waxaan ku base gareynaynaa si ICT ahaan ama price action pure aan ku analyze gareynaynaa. Waxaa aragtaa meeshaan markii ugu dambeyso goal uu soo sameeyay retracement waxay ahayd bisha February I think January 2022 inta haddii aad aragtaan. Sidoo kale expansionka ugu horeeyay wuxuu ka sameeyay areadan waxaa kuugu beegan area BDRA. haddii aan isticmaalno Fibonacci-geena aan iraahno swing low kan waa swing-ka ugu dambeeyay iyo swing high kan ahaa, haddaa si u fiirisid waxaa aragtaa area-da uu ka kacay inuu 0.5 uu ahaa. Then markuu ka kacay area-dan waxaa ku haysatay fair value gap. That's why expansion uu sameeyay, dhaqaaq uu sameeyay displacement-giisa si qurux badan oo waxaa waaye uu goal u dhaqaaqay iyadoo loo fiirinayo expansion ama dhaqaaq ama impulsive kadibna correction-ka muxuu sameeyay sweep liquidity kadibna meel BDRA uu ku imaaday. BDRA hadduu ku imaaday 50% Fibonacci iyo waxaa lagu imaaday main threshold ama equilibrium-ka sida loo yaqaano oo 50giisa kadib suuqa saas uu ku baxay. Targetka koowaad ee -27 wuu gaaray, laakiin haddii si aad u fiirisid inta badan targetka VIP-ka markaan isticmaalayno targetkaas aan isticmaalaynay. haddii la fiiriyo qaybta dambe targetka labaad oo 68 -0.618 muusan gaarin. waxaan u deganaynaa quarter-ka 3 bilood aan u deganaynaa. 3 bilood haddii aan u degano muxuu noo sheegaya 3 bilood waxaan ku base gareynaynaa analyse-keena caadiga ah oo scenario la fiirinayo. waxaan rabnaa marka 3 bilood markii aan u degano inaan ogaano waxyaalaha 3 bilood ka muuqan karo. ilaan sanadku wuxuu ka kooban yahay 4 quarter saan hore u sheegay. quarter-kii hadda la soo dhaafayay quarter-kii ka horeeyay muxuu ahaa suuqa. haddii tusaale ahaan April to April inta badan April wuxuu soo sameeyaa nasasho goal inta badan. waxaan fiirinaynaa hadda inta wax uu ka sameynayo. maxaa aragtaa meeshaan sida suuqu ugu jiray consolidation hal mar wuxuu sameeyay expansion-ka muxuu qaaday high all time high Allah all time high-gan dhan uu hal mar wada qaaday. hadduu hal mar wada qaaday kadib muxuu soo sameeyay fiiri all time high la qaaday weega lagu qaaday kadib waa la soo laabtay. soo laabashada lagu soo laabtay meel BDRA lagu imaaday. meesha BDRA-da lagu imaaday maxay tahay waa meel fair value gap. fair value gap hadii lagu imaaday last candle-ka oo bishii July 2023 ayaa waxaa lagu sameeyay sweep markii lagu sameeyay wixii ka dambeeyay October 2023 goal wuxuu ahaa buy ahaa. candle-ka ka dambeeyay uu ku kor xirmaayo uu ku socday ilaa laga soo gaaro candle-kan hadda socda. waxaa aragtaa marka candle-adan isku fiiriyay candle walba close above ah. laakiin hadda haddii aad fiirisid 3 bilood oo soo dhamaatay accumulation-ka ahaa hal mar maxaa la sameeyay manipulation sweep lagu sameeyay. sweep haddii la sameeyay candle-kan muxuu xirmo quarter-kan ma xirmay. goormuu xirmaya wuxuu xirmayaa almost wuu soo xirmo quarter 3 yes, laakiin July hadda way ku furantay. marka waxaan u gudbeynaa intaan gudbin BDRA-ga maskaxda ku haay laba BDRA waaye. mar walba waxaa muhiim ah inaad fair value gap-yada kala fahantaan, midka overlapping fair value gap-ka ah ama midka breakaway fair value gap-ka ah. I hope meeshaan waxaan aragnaa fair value gap-kan iyo kan haddaa isku fiirisid midka overlapping fair value gap-ka ah waa midkan intuu ku beegan yahay sababtoo ah waxaa ka sokeeya dhinacan ka jiro meel high ah oo la jibiyay. marka kan waxaa ka koreeya fair value gap kana marka ay probability-giisa ay badan tahay in la imaado. haddii monthly-ga aan fiirino marka meesha 1 month yaan joognaa 1 month yaan usoo deganay. 1 month haddii aad fiirisid tusaale ahaan bishaan la jooga May waaye. May la soo sweep gareeyay. May waxaa ka horeysay ka dambeysay June bad yaa lagu sweep gareeyay, laakiin rejection-ka kor uu ka soo dhacay. marba hadduu rejection kor ka soo dhaco waxaan sugaynaa candle-kan hadda socdo ee monthly-ga ah dhamaadkiisa waxaa dhiman 10 cisho iyo 4 maalmood. I hope 10 cisho iyo 4 maalmood haddii uu ku dhamaado uu ku xirmo symbol waa ogaanaynaa marka bilaha ka dambeeya suuqa jadwalkiisa sidoo noqonaa. inkastoo warbixino dagaal iyo waxyaalo noocaas ay soo baxayaan laakiin ina focus-ka ku haysid waa haddii aad calaamaysanaysid marka waxaa calaamaysataa all time high-ga kanuu kuu yahay kanuu kuu noqon doonaa all time low-gaagana kuu noqonayaa
kanuu kuu noqonaya all time low previous monthly labadaanu marka kuugu dhexeeya haddii weekly aa usoo degtid marka weekly maxaa ka jiro weekly waxaa aragtaa consolidation suuqa inuu ku jiro oo sweep uu kusoo sameeyey haddii marka suuqa consolidation uu yahay kor lasoo qaado macnaheeda manipulation kor uu dhaco probability waxay u badan tahay in hoos lasoo aadayo haddii suuqa hoos loo qaado manipulation kana displacement ama distribution wuxuu u badan yahay in kor la aadayo hadda meeshan waxaa inooga muuqata marka weeklyga previous weekly high-ga in la qaaday oo lagu qaaday week laakiin close body uu yahay hoosaa lagu soo hoos xirmay marka aad waxaa calaamaysanaysaa previous weekly high iyo previous weekly low symbol haddii kan aan calaamaysano scenario-heena wuu isqabsanaya waxaan aadaynaa daily scenario-hiisa markan ku xirayna insha allah aragtida dailyga ka jirto iyo waxyaalaha uu soo sameynayo symbol daily meesha loo soo cararayo ee loo soo ordayo waxaa fiirisaa expansionkan hadda soo dhacay haddii v baa isticmaashid intuu ka bilowda expansionka intuu ka bilowda break of structure kan uu ahaa then suuqa muxuu sameeyey nasasho yar uu soo sameeyey area lagu soo laabto ma jirto fair value gapkan wuu kuu banaaya imbalance-ga lama soo buuxin haddii aan isticmaalno marka Fibonacci aan nahno swing low swing high meesha u dambeysa aan geysano okay waxaa aragtaa 0.5 ka xataa inaan laga soo hoos barin that means waxay ku tusinaysaa suuqa momentumkiisa inuu ku xoogan yahay bearish ahaan inuu u xoogan yahay uu soo socdo haddii candlekan hadda lagu hoos xirmo candlekan weyn oo inta ku yaalo oo Tuesday-ga ahaa 16 July haddii hoostiisa lagu xirmo close waaba lagu xirmo waa ujeedaa 0.5 ka calaamaysanayna then kana calaameysano kan waa previous weekly low leave it kana waxaan ku calaameynaynaa maadaama CRT ahaan aan rabnay inaan u fiirino kana marka waxaan calaameysanaynaa candlekan blue ka dhig kana waxaa ka dhigataa blue ka dhig okay suuqu soo cararaya intuu soo cararaya marka is there any BDRA loo soo ordaayo meeqa BDRA inta yaala fiiribal kow oo biya inta ku yaalo oo close above ah haysatid ma garaysa ama calaamayso wixii BDRA markaas ah haysatid sidoo kale OB-ga waxaa ku lamaanan fair value gap yar kugu dhex jiro then waxa way probability-gaaga hadii 4 hour aadid that's why sal aan ugu soo qaatay maalinka ugu dambeysay hadii aad aragtay interiyada area-dan aan ka soo qabtay interigiisana aad u qurux badnaa m pattern oo lagu laabto neckline-ka hadii aad fiirisid sidoo kale si qurux badan oo intrigan ku soo dhacay qofkii markaas ka soo faa'iideystay fursadan ugu badnaan 400 miya mise 400 xoogaha biib soo dhaqaaqay 500 yes waa kaas 500 iyo wuxuu dhaqaaqay 48 biib dan hadda marka move-kiya socdo wili move-ki target-kiisa hadii la cabiranayo intee la cabirtaa correction kana la cabiranayo area-dan that's why target-kayga meelahan ugu beegnaa correction kaasaan ka soo qaatay cabirkayga marka waxaan rajeynayaa hadda meesha loo soo ordayo inay tahay dhowr BDRA oo meesha ku yaalo inta waxa ku yaalo liquidity badan sidoo kale BDRA sa ku yaalo inta hadii aad fiirisid fair value gap kala inta ku jiro fair value gap kan waa 4 hour mar walba high time frame ka BDRA-giisa ayaa xoog badan marka waxaa laga yaabaa suuqa hadii inuu ku soo furmo some gaabis inuu ku furmo maadaama dhaqaaq uu ahaa haddana dagaale ay dhaceen maybe gaab inuu ku furmo marka waxaa fiirinaysaa isniinta indhaha ka daawo warbixintana la soco wixii ka soo baxa isniinta kadib ayaa analyze-kaaga ku dabaqaysaa